guriga loogu soo galay waa la watay ka bacdina saa u raadinayna waa weynay waxaan ku dhahay iyagu xabsiga dhexdeeda nagala soo hadlay waxayna dhaheen maxaan ku dhahay 8 sano lagu xukumay waxa uu ahaa hadal farxad geliyay niyadda hooyooyin badan oo dhalinyaradoodu ay ku xiran yihiin xabsiyo ku yaala gobolada dalka iyo caasimadda wareegtadii madaxweyne Farmaajo uu ku magacaabay guddiga soo baaraya tirada iyo sababta ay u xiran yihiin maxaabiista xabsiyada ku jirta qaar ka mid ah hooyooyinka caruurtoodu ay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee Muqdisho ayaa u sheegay goobjoog in cadaalad darro ubadkoodu dhowr sano ay u xiran yihiin waxa wacdiya wax ku sheegaya caruurteena anaga gardarra lagu haystaa ma fahantay gardarra ayaa lagu haystaa xaq darra lagu haystaa hadda ka horna waxaan ka maqalnay maxaa tiri madaxweynaha Farmaajo Cabdullaahi Farmaajo inuu yiri caruurta gardarra lagu haysto waa sii deynaya hadda ilaa saacadan wax la soo daayeen lama arkay caruurteena waxaan rabnaa inuu si maartay fudud oo noogu soo dayo oo warkii oo yiri oo ka xaqiijiyo oo maartay oo ka saleeyo ma garatay waxaa la yiraahdaa magacayga Fartuun Xasan Sahal waxaan wiil waxa iga xiran 3 wiil 2 wiil oo aniga dhalay iyo wiil eedo ahay wiilashaas xilliga Shariifa mid la xiray midna Xasan la xiray mid Shariif laba Shariif dhexdeeda la xiray wiilashaas waxaan ka tirsanaynaa anaga cadaalad darro ahaan waxa lagu xiray shaqada guddiga soo baaraya maxaabiista iyo sababta ay u xiran yihiin ayaa durbaba bilaabatay waxaana Mukhtaar Nuur oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka guddigana xubin ka ah uu sheegayaa in shaqada ugu horeysa ay ka dhigayaan baaritaan lagu sameeyo waxa ay ku eedeysan yihiin maxaabiistu wax ugu muhiimsan oo qabanayo waxay tahay oo guddigan u soo xil saaray in horta warbixin laga soo siiyo guud maxaabiista ku xiran xabsiyada qaabkay u xiran yihiin sababay ku xiran yihiin qaarka xabsiga suganayaan warbixinahaas ayaa rabnay in madaxweynaha aan u guurkalno aan u gudbino wixii natiijo ah asagana uu go'aan ka qaato sida uu xaqiijiyay taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdikariin Cali Afrax xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxaa ku xiran maxaabiist tiradoodu ay gaarayso 115 ruux waxaana uu qabaa in cidii cadaalad darro ku xiran guddigu uu soo calaamadin doono 115 xibnood ayaa xal ku bariyay saakan waxa laga sii deysaan warbixinta ku hayo way isku xirinahay gobolada ilaa Puntland ilaa Kismaayo Baydhabo Galmudug Hirshabeelle xabsiya dalka inta Soomaaliland ka ahayn way isku xirinahay report matinaal kala qaadanaa marka laga tago in guddigu uu hawl bilaabay dadweynaha ayaa isweydiinaya maxaa xilligan magacaabista guddiga ku soo beegay waxa ka jawaabaya Dr. Cabdiqaadir Maxamed Muuse xeerlaaliyihii hore ee qaranka haddana kamida guddiga la soo magacaabay guddigan in la magacaabo sharci ahaan ma aha mid sharci darro guddi waa la magacaabi jiray waa loo magacaabi jiray xabsiga asbaabta kaliftay ayaa waxay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa waxa gaaray cawashooyin fara badan oo dadweynaha shacabka ka imaanay cawashooyinkaasi oo ku saabsan in dad badani ay ku xiran yihiin xabsiga oo si sharci darro ay ugu xiran yihiin waxa madaxweynaha gaaray cawashooyin fara badan oo dad badan in ay xabsiga ugu jiraan cadaalad darro xabsiga waa hay'adda kaliya ee correction section la yiraahdaa iyadu hay'adda meesha wax lagu saxo oo lagu dhaqan toosiyo guddiga madaxweynuhu uu soo magacaabay ayaa ka shaqeyn doona baaritaan ay ku sameeyaan tirada iyo dacwadaha loo haysto maxaabiista xiran haddaba guddigu maamul goboleedyada wax culaysa ma kala kulmi doonaa Mukhtaar Nuur oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda racfaanka guddigana xubin ka ah ayaa ka waramaya annaga horta meeshan waxa weeyaan dawladda Soomaaliyeed waa mid maamul goboleedyada waxa weeyaan maamul goboleed weey kama ma aha dawlado kale guddigan waxa weeyaan waxa la rabaa in la hormariyo lagana shaqeeyo horumarinta garsoorka iyo dib u habeen lagu sameeyo xagga garsoorka iyo maxaabiista iyo xabsiyada iyo waxay u baahan yihiin wax dhalada meesha jirto in farsamo ahaan loo hagaajiyo taa wax dhibaato marnaba kama qabanina la kulano guddiga madaxweynuhu uu soo magacaabay ee baaraya qaabka ay u xiran yihiin dad badan oo Soomaaliyeed ee gobolada dalka iyo caasimadda xabsiyada ku yaala ku jira hordhacooda ayaa soo booqday halkan oo ah xabsiga dhexe dhalinyarada qaarkood oo goobjoog ee la hadashay ayaa ku sheegay inay heli doonaan cadaalad ka duwan tii hore Cali Aadan Muumin goobjoog Muqdisho